سعيد عثمان فهي وحكو دشay meesha la yiraahdo Ceelaayo ilaa 7 jirkiisii Ceelaayo joogay marka Ceelaayo marka waxay ahayd waa meel calan walaynayso ladan waxa aabahayna bacmisteri ku lahaa dhowr meelood buu ku lahaa laagsiyada doonyo iyo waxaas uu lahaa waxyaabahan ka xusuustaa waxa weeye annagoo yaryar oo malcaamada iyo waxaas dagaal yaryar iyo annagoo doonyaha maaragtay baan u tagi jiray qadada maaragtay baxaarida inaan la soo qaday intaan u dabaalo doonyaha baan ka soo noqon jiray adigu marmarna waan soo eri jireen 1950 baan dhashay December meelahaas odagaas sii maan ahaan jiray wax qorqori jiray nolosha badankeedu baday ku xirtaa miigina waa jiray de buurahan agteeda iyo dad badan baa markaa jooga hadda siday tahay ma ahayn way ka dad badnay waxyaabaha cajiibkana ku arki jiray marka xeebahana way ka wada jireen waxay ahaayeen marka qof guri dhisanayo inta laamo iyo wax la soo gogooyo iyo waxan kaasaba la soo fariisanaya markaasaa dumarkii shaahi bay soo karinayaan raggiina xarkihii bay la samaynayaan iyo qoryihii iyo wixii la jarjarayay iyo waxa adigu waa la wada shaqaynayaa miyiga mar baan u baxnay buurta kor ka koraysa Ceelaayo cashaan tagnay markaasaa adigu marka waxa aabahay baa wuxuu dhoofin jiray xijiga wuxuu ka bilaabay shaqo isagoo 17 jir bahalkii minawaaradii Ingiriiska ma garanaysaa wuxuu ka noqday cool boy kuwan maaragtay dhuxusha saa ugu rida adigu dhowr sano la socday kuwan waa manawaarku waxa man of war waa kuwii marka Australia iyo India iyo meelahaas tagay Ingiriiska waa tagay qaar baa odayaalku dacaayadana nin South African oo gaaladu disho ka tuurtay markabkii bay ma ka qaateen isaga kuwa kala Soomaali oo yiraahdo geel lagu sii ninkan anagu ah markaas xoogaa lacag la siiyay leeyahay marka xoogaa Ingiriisi uu ku hadli jiray xoogaa Ingiriisi ku hadli jiray Carabiga waa yaqiinay xoogaa gusuraati uu qori jiray cadan iyo markuu yimaado wuxuu noo keenay adu mariyo iyo waxaan ka dukaanna meesha laba dukaan iyo waxba ku lahaa timir iyo dukaamadiisa soo buuxin jiray markay tahay sanadkii markaa markuu naga tagay qoliyaha reer Qardho maaragtay baabtiyaashiisa markaa bil ama laba ku soo maqnaanaya markaas uu nagu soo noqon jiray adigu cadanna wax ku maqnaan jiray 6 bilood 3 bilood 4 bilood meelaha marka qaar bay waxay lahaayeen bahalkii heshiis waxaan soo keenana qaarna Ceelaayo ku dhaafi jiray iyo buraan iyo meel qaarna wuxuu geyn jiray Sool iyo meelaha boqolax wuxuu kula jiray heshiis marka alaabtii bay u gadi jireen oo hayn jireen lacagta iyo wax saas ku shaqaysan jiray iskuulka buraan laga furayay buraan baa la keenay marka dukaan buu odag ku lahaa nin walaalkay iga weyna buraan baa dukaan ugu hayay dukaan ku hayay kiibaan markaa la joogay marka quraanka marka iskuulka nala qorayay Ingiriiska iyo Soomaalidu heshiis bay lahaayeen oo ahaa ilmaha quraanka la qorayaa waa inuu ilaa jisca ma dhameeyay ama quraanka aad u yaqaana baa heshiisku ahaa marka markii la yiri meesh buraan iskuul baa laga furayaa Soolo dhan baa laga tagay xagga laga yimi ilaa 200 qof baa meesha yimi marka anigu marka waxaan ahay 7 jir waa anagu waa soo galay adigu hadba qof baa loo yeeray la leeyahay quraanka xagee ka gaadhay akhri meeshii markii aan galay anigu maba dhigan quraan way soo taagay halka waxa fadhiya odayaasha kamida meesha iyo gaalkii waqooyiga dhan marka tacliinta haysay macallimiin ka soo raacday dayaxa iyo waxa fadhiya iyo odayaashii xuqaasha waaweyn quraanka akhri marka anigu waxaan marayaa nuun alif ba ta markaas xagee maraysaa nuun baan idhi
markaa waxay u qaateen inaan suuratu nuun inaan joogo nuunna markaasay yidhahdeen nuun waa iska camo waa jooga gaalku de ma garanaye markaasaa waxaa la yidhi akhri jiq ma leh bal nuuntaa joogto akhri baa la yidhi jiq bay igu noqotay de maba nuun anu nin may hadda nin meel waxba ma oran waa aamusay marka odaygii adeerkay ahaa caqalka waa nin bila cartan baa la oran jiray buu yidhi bahalka war ka nacaska guuleed baa la yidhahda markaasuu fara ka naxaa uu fara ka naxaa gaalkii baa lagu waa fara ka naxa waxaankaas waxaa la yidhi waa joogaa soo ma halkaa istaag kuwii baa laygu daray qur-aanka akhriyey oo yacni iyagu baaskareeyey ha adigu laba iyo ba iga horreeyey meelaha marka wixii baa la waday 200 baa taagan hadda laakiin waa dad waaweyn waa wax kasta ku jira marka 6 baan la helay quraan akhriyay waxa akhriyay fiican ha 6 anigu waa ku jira hadda waa been waxaa marka la yiri gaalkii wuxuu yiri I'm sorry hadda iskuulka sanadka lama furi karo waxaad yeelaysaan caruurtan quraanka loo dhigo sanadka bacdi baan idinku soo noqonayaa waa la qorayaa markay saas dhacday markaa wax nin markaa la socday Faarax Xuseen baa la oran jiray waa taqaanaa Faarax waa nin diin la foolay markii dambe ka noqday oo markaa laakiin macallin yar oo markaa ka soo baxay baa yiri seer hadday ka waran hadday quraanka gelinka hore gelinka dambe loo dhigo gelinka horena iskuulka dhigtaan ka war ilaa dadkan oo dhan hadii waxa laga yaabaa inaan sanadka dambe loo helin that's a good idea buu yiri laakiinse sharcigu wuxuu naga dhaxayaa odayaasha Soomaaliyeed war maxay idin la tahay kuwii odayaashii meesha markaas madaxu raxana waa nin fariida waa fiican halkii baa markaa waxa la yiri soddon arday laga qoro ha markaa soddonkay siiraadeen waa ugu yaraayeen ama waxanka baana la qoray 1958 markaa waxa ku jiray adigu dadkii ardadii bariga kamid ahaa Cabdullaahi Ducaalihi halkii wasiirka ahaa iyo green markii dambe boosaasu isagu naga yimi laakiin isnagu kamid ahaa ardada qaar badan baa kamid ahaa iskuulkii baan fariisanay ilaa 3rd grade baan dhiganay 3rd grade ka markaa inta carabi baa lagu dhigtaa yaa waxa dhigay iyo xoogaa ingiriisi waxa noo dhigi jiray macallimiin Soomaali oo badanaa waqooyi laga soo bedelay waa maqashay baan malayn ninkii la oran muxuu ahaa qarnaygu ka shaqeyn jiray markii dambe Faisal ha mistake baa kamid ahaa mid kala kamid ahaa ninkii oran jiray ha iyo maaragtay waxaan lagu dacaadeyn jiray maaragtay meesha baabuurku wuxuu iman jiray bishii marka mushaharka sida ilaalada iyo oday xaaj geel la oran jiray wuxuu lahaa baabuur iman jiray adigu bishii ama labadii bilood marka maalinta baabuur yimaado magaalada fasax bay armacalin baabuur ayeeraya ardada way nagu dacaaday waa nagu yidhaa armacalin baabuur ayeeraya waa lagu ordayaa maxaa soo ardaa marka badanaa waxa carabi iyo baa la dhigan jiray macallimadu waa fiicnayd waxa carabiga iyo sida dadka iyo ingiriisiga lagu bari jiray waxa ahayd ingiriisina waa qaadan jiray laakiin carabiga minka waxa lagu bari jiray waa xusuustaa waxa lagu oranayaa dhagax madow baa jiray marka dhagaxa madow ardadu markay soo fariistaan waxa laga rabaa inaad ingiriis ku hadasho ama carabi ku hadasho mana taqaanidba marka hadda marka isu timaadaan mid marka kii dhagax hayay ka ugu dhagaxa ugu dambeeya oo lagu helo maalintaas waa la karbaashaya marka waxa dhacaysa mid baa ka soo taagay markaas war iska waran oo ka dhagaxii buu wataa ma ogtahay mar allaale marka dhagax Soomaali ugu jawaabto ku dhagax ku dhiibiya ama ingiriisi ama carabi ugu jawaabtaa marka adigu maadada maalinta xisada la dhiganayo ama wax saas bay nagu bari jireen waa tacliin fiican bay ahayd runtii ilaa marka imtixaan baa la qaadayaa qaar baa naga dhacay iskuulkii looma sii wadin waa hareen 2-3 baa naga haray
intii dambe qaar badan scholarship bay heleen oo imtixaan baa la qaadi jiray waxay galeen waxaanu galnay bahashii dayaxaanu galnay dayaxa marka galaaska afraad ilaa 7 baanu ka dhiganayna marka waxa weeye guryihii waa dhisan yihiin waxaa guryihii baa ku jirtaan kalaasyadii waa jiraan waa boarding marka halkaa waxaan ugu tagnay macallimiin ingiriis oo wax ka dhigaysa labaa joogay marka waxay iska ahaayeen kuwa macallimiin dhaba ma ahayn kuwa adigu u yimi meesha bal eega iyo sida dadku wax u bartaan iyo waxa I remember marka maagan one semester bay nala joogeen kuwaas Soomaali baa dhigaysa marka Soomaali iyo Hindi Hindi baa dhigaysa Hindigu wuxuu dhigi jiray xisaabta marka wuxuu haystaa bug la yiraahdo RR xisaabba ma baranaysid bas wuxuu haysto iyo wuxuu dhigayo iyo maaragtay su'aalaha dadka la weydiinayo iyo yani wuxuu ka dhigayo waxaan ka xusuustaa waxa weeye in ardaygu imtixaanka marka la galo 5 arday 30 arday soo maaha 6 ugu horeysa scholarship bay helayaan automatic waxaanu bixin jiray 150 shilin beriga baa la bixin jiray marka waalidka iyo waxa G1 baa waxa laga soo warqad baad waxa ka soo qaadanaysa lacagta waxaad geenaysaa ceergaabo bahalkii dawladda hoose bahalkeeda meesheeda waxa lagu siinayaa G1 bahal yar oo warqad yar oo sheegaysa lacagtii bixisay xagaad geenaysa 150 kaas intay ahayd ma taqaanaa doolarku markaas waxa $2.50 waa sanadkii qabaa'ilka ma taqaana qaar baa ardada geel la soo gadi jiray reerku intay soo urur inay hebel ba marka reerka qaba ee lacagta reerka aaba iga bixin jiray laakiin qaar baa ay ku adkayd inay bixiyaan laakiin waxa jilibkii oo dhan bay isu tagay wax la war inay hebel baa ku jira iskuulkii ama maaragtay oo u baax waxa loo gado markaas loo gaday nolol fiican bay ahayd meel fiican bay oo qabo jiif fiican farid discipline ardada qaar baa waxa laga dhigay kuwa waaweyn perfect waxa yiraahdaan prefect halkaas oo kale jiifa oo qolkan soo maaha albaabku waa dhaxan kuwa ugu yar baa halka la seexinay kuwa waaweyn xagga galaya ama wax ka qaadayaan marka qaar baa xataa aad u waaweynaayo aad soranaysa xaasas bay lahaayeen wiilal weeye kulli gabadh male